halkani waa kaamka barwaaqo ee duleedka magaalada Burco waxa ku nool in ka badan 500 oo qoys kuwaasoo xoolahoodii ay ka saartay abaartii ka dhacday Somaliland. Telefishanka Ariel oo gaaray kaamkani ayaa dadka ku nool waxay cabasho ka muujiyeen adeegyada baahiyaha aasaasiga oo ay sheegeen in aanay imika haysan, iyagoona fariimo kala duwan oo qayladhaan ah u diray xukuumadda Somaliland iyo hay'adaha deeq-bixiyaasha ah, waxaana ugu baaqeen in ay soo gaarsiiyaan caawimooyin kala duwan. wadadkii qaxootiga ahaa ee halkan kuwii barakacayaasha ahaa dadkii gobolada ka soo kaxay kuwii xooluhu ka baxeen ee annagana dul saarnaa haddaanu nahay madax dhaqameedadii gobolka hay'adaha dawladda madaxweynaha wixii danaynaya beelaha gabooye waxaanu u sheegaynaa in guri barwaaqaanu degan lahay in dadka wixii biyo u haya iyo wixii raashin u haya hay'adaha dawliga intaba waa loo baahan yahay kaam barwaaqo oo ugu talagalay dadka maatada in lagu quudiyo waxaan halkan si xushmad iyo karaamo loo codsanaynaa inay si sharaf leh dadka xusiyaan hay'adaha maxalliga iyo dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliya wixii danaynaya dadka minority-ga ee meeshan sugayay beesha gabooyo guri barwaaqo ka soo guuray guriga samo abaar baan naga soo guurnay qoryaan shidanaan ka weynay biyaan ka weynay wax baan ka weynay dadkii gabooyo oo halkan daadsan baanahay suldaankana dhul noo iibiyay haddana noloshii baa inaga maqan ilmaheeni anigu waan isku dul baabaasanahay qoraxdaasaan fadhinaa guri ma haysano laba garan waa hal mar aan saarnay baan ku dhex jirnaana haddii dawladdu ay dadka wuxuu qabanayso oo ay dadka hadalbadkeeda caawinayso oo taageerayso oo wuxuu qabanayso waa inay degdeg dadka halkaa tuban ee bacad ku hayo waa inay wuxuu qabataa iyo hay'aduhuba waa inay dadka degdeg wuxuu ku qabtaan waxaan u iibiyay haddaan ahay suldaan farxaan dhulkan aan imika joogno dadkana waxa weeye sidaasaan u soo degnay waad aragtaan dadku waxay u baahan yihiin macluumaad fara badan baahiyaadkii nololeed bay u baahan yihiin hadday biyo tahay iyo hadday raashin tahay iyo haddii ay dibadejin tahay sidii loo dejin lahaa dadkuna waa dad badan oo gaadhaya ilaa iyo 500 oo qoys iminka intaa iyo in ka badanna way soo degaysaa waxaanu leenahay oo ka codsanaynaa hay'adaha xukuumadda dhammaantoodba waxaanu leenahay dadkaas siday ugu soo gurman lahaayeen minority-ga ah ee waxa weeye beesha gabooye sida ugu dhaqsaha badan baan idin filaynaa oo idin doonaynaa inaad u soo gaadhaan degmada barwaaqo ee waxa weeye haddaan ahay anigu suldaan farxaan aan u iibiyey beeshiina waa taa waxa weeye sida ugu dhaqsaha badan baan idinka filaynaa inaad u soo gaadhaan dadkana sidaad la socotaan waa minority dadkii ama loolan jiray beesha gabooye marka guddoomiyaha gobolka ugu horeeyo isuduwaha barakacayaasha hay'adaha maxalliga iyo kuwa dawligaaba ee dareeya dadkan qaxootiga waxaanu baaq ugu jeedinaynaa halkan inay si degdeg ugu soo gurmadaan wixii tashiilaad ee nololeed baahi nololeed biyo baad midna ma hayaan bacadkaasay fadhiyaan waxaanu si xushmad leh uga codsanaynaa si degdeg ah inay dadka lula soo gaadhaan wadaadada in la eego maatadan iyo masaakiintan oo ilaahay dartii wax loogu qabto oo nin walba aakhirada tulada adigu bixiso saran adduunku waa maalmo waa laga tagaya waana laga hoyanaya dadkan waa in la soo gaaro caalanka wax la leh inaan noqono hoosna loo eegaan u baahanahay haddaan ahay odayaashii beesha gabooye Cabdullaahi Maxamuud Muuse Xudayfi telefishanka caalamiga Ariel magaalada Burco adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo idahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida